shir lagu cambaaraynayay weerarkii argagixisada al-shabaab ay ku soo qaaday xuduudda deegaanka Soomaalida xeryaha ciidanka gaarka ee deegaanka ayaa ka qabsoomay degmada Shinile. shirkan ay ka soo qayb galeen shacabka kala duwan, culimaawidiin, dhalinyaro iyo maamulka degmada iyo gobolka City-ba ayaa waxaa loogu cambaaraynayay isla markaasina loogu ducaynayay ciidamada gaarka ee deegaanka ee lagu soo qaaday kooxda al-shabaab ay ku soo qaaday weeraradaasi. waxaana ugu horeyn shirkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka City Mudane Maxamed Kaahin, isla markaasina sheegay in loo baahan yahay in loo duceeyo xubnihii ku shahiday weerarkii gaadmada ay kooxda argagixisada ay ku soo qaaday. marka hore inta aanan hadalkeena aanan garab galin aanan guda galin waxaan jecelahay geesiyaashii ciidanka gaarka ah ee ku shahiiday dagaalkii ay soo qaadeen kooxda argagixisada ee al-Qushaash intaan u istaagno hal mirir aan faataxada u marro ilaahay samir iyo iimaan inuu naga siiyo jannatul firdawsna uu geeyo ayaan soo jeedinayaa marka ugu horeysa faataxada marayna marka hore faataxada loo maro marka ayaa la faris waxaad ogsoontihiin marka ciidanka gaarka ah uu dhaafay ciidan deegaan u dhaafay waxa uu marayaa waa ciidan dal oo hawlihii ay qaban lahaayeen ee deegaankeenna oo ah deegaanka ugu xuduud dheer xuduudna la wadaaga dhammaan wadamada aan jaarka nahay ee Kenya, Soomaaliya, Somaliland, Soomaali weyn, Djibouti intaba xuduud la wadaaga xagga ay ka ilaalin lahaayeen ciidamada militariga ee dalku waxay gaareen in iyagu gacanta ay ku dhigaan. waxa kaloo halkaan iga sheegayaa in argagixisadii isku dayday inay carqaladayso waddankeena Ethiopia in iyadana sidoo kale shalay toole dhammaan dhulkii ay isku dayday oo dhan gacanta lagaga dhigay. marka waxaan shirkeena yahay haddaan ahay dhalinyartigii gobolka City gaar ahaan degmada Shinile inaan u muujino sida aan 24 saacadood u garab taaganahay ciidamadeena gaarka ah ee Liyu Police. waxaan ku taageeraynaa ha noqoto xag maal, ha noqoto xag muruq, ha noqoto xag dhigshubis, dhammaan inaan la garab taaganahay oo ay walaalaheen yihiin, waalidkeen yihiin, dhalinyarteennii ay tahay in la midka ahayd. haddii laynoo baahdana dhammaanteen inaan tagno aan diyaar u nahay inaan halkan ka muujino ayaan soo jeedinayaa. marka sidoo kale gudoomiyaha degmada Shinile Mudane Ibrahim Roble ayaa isna ka hadlay munaasabadan oo sheegay in loo baahan yahay in si wada jir ah gacanta la isku qabsado sidii looga hortagi lahaa xubnaha argagixisada. waxaan mahad gaar u celinayaa dhalinyarta magaalada Shinile oo ka soo qayb gashay shirweynahan maanta aan ugu talagalnay inaan kula wadaagno xaaladda ka jirta deegaankeena. dhalinyartuna mar walba ay tahay mid xogogaal ah oo la socota xaaladda dalka iyo deegaankaba ka socota. saa daraadeed waqti xaadirkan aan ku sugannahay waxa weeye xaalad xasaasiya taagan taasoo ah xaaladda ciidankeena Liyu Police oo aagoogi ku sugan in mataqaanaa nimanka al-shabaab ama al-Qushaash la dhaho ay furmeen inagu soo doonteen. kullay xaaladaas wad la wada socotaan baan qabaa. xaaladaas markaa waxay leedahay culayskay leedahay deegaanku la socdo inaad inaguna aan la dareeno oon xaaladda aan damiirkeenu u nasiyo iyo laga marmaan noqonaysa. waxa weeye ciidankeenan mataqaanaa Liyu Police waa ciidanka kaliya ee deegaankeena xadkiisa ilaalinaya weeyaan.
cid kasta oo nagu keenaysa nabadgelyo darro kuwa difaacaya weeyaan min laga soo bilaabo xadka mataqaanaaye damanle ilaa booq ilaa ka gaarsiin moogtay garbaciis ciidanka maalin iyo habeen aan seexanayn heegan kugu jira weeyaan amniga dadkeena saadaradeed mar walba waxayna looga baahan yahay haddaan nahay dhalinyartii magaalada Shiniile inaan inaguna aan garab istaagno taageero aan siino heli hol midkii la heli karayaba in la sameeyo waa laga maarmaan weeyaan marka kullay maadaama degmada Shiniile ay tahay xaruntii gobolka City inaan inagu u bilowno hormuud u noqono garab istaaga ciidankeena liyu booliska halganka dheer ay kula jiraan nabadiidka kala duwan inaan mar walba garab ku siino ayuu noqonayaa kullay ajendaas ku imanna shirkeenan taageerana inaan u muujino inaan ciidankeena habeenay dharaar inaan garab joogno aan muujino wixii taageero laga heli karo bulshadeena haday dhaqaale tahay haday fikir tahayna mar walba aan xoojino ayuu noqonayaa kullay wada hadalkeenu sidoo kale qaar kamid ah ka soo qayb galayaasha oo isugu jiray dhalinyarada iyo sidoo kale culumaa u diinka ayaa iyaguna ka hadlay munaasabadaasi oo sheegay inay aad iyo aad uga soo horjeedaan ciidanka gaarkana ay hiil iyo hoob la garab joogaan sidii la iskaga dhicin lahaa xubnaha weerarka ku soo qaaday xuduudda deegaanka bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan salaamayaa shirgudoonka gudoomiyaha gobolka City iyo gudoomiyaha degmada Shiniile gudoomiye ku-xigeenka degmada Shiniile iyo maamulka kale jooga iyo saraakiisha liyu booliska iyo saraakiisha kale booliska shacabka ee ku sugan dhammaan dhalinyarada iyo duqeyda hooyooyinka ka soo qayb galay shirkan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحوي الله نحريستو انتي كشهيدي شعبهان يعيدا كليو بوليس كباها عطو كشهيدي قارهان فرنتا قول كافدير اي كوح ذا ارقاق حسدو سحق دراء اي اسو قدبين حمني كشهيدي يكو دفاعي الله نحريستو الله جنة فردوسة الله جي أقول تودنا الله كوري كوي كلها وعمنا الله هكذا لا إذا كليوب الشباب ارتوا كوح أرجع حساء ذلك الصومالي السامين بدن كل هيد هذانا إن الدجاج الصومالي ده إن السامين وسوق جيستو وسوق هنتي لكن الدجاج الصومالي ده ذلك الصومالي ماهن هذانا هاي أنا أقول لك مجا dhalinyarada barbaarta gobolka City أنا أقول لك مجا dhalinyarada gobolka City أنا أقول لك shacabka gobolka City haddaan nahay al-shabaab furintan kuugu imanayna anaku iska daa ciidanka liyu booliska geesiinta dawlad deegaanka Soomaalidu talaabaday qaadeen anaku waan garab joogsanaynaa hiyo hooba maal baan ku garab joogsanaynaa muruq baan ku garab joogsanaynaa adin baan ku garab joogsanaynaa ciidanka liyu boolisku waa kuwa ka hawlgala galbeedka City waa kuwa ka hawlgala furinta danood ilaa mooyaale ka hawlgalo salaxaad ilaa xuduudka aan Oromia la leena dawlad deegaanka dhamaanteed maantana waxay difaacayaan hawl qaran weey waa xuquuqdii uu ciidanka qaranka Itoobiya inuu qabtaaha inay qabtaan ciidanka liyu booliska deegaanka Soomaalidu waa hawl aan ku garab istaagayno waxa leedahay al-shabaab waddanka iska daa Itoobiya waddanka Soomaaliya laftigiisa ka sifaynayna waxa weeye inaad xuduud deegaanka Soomaalida ku soo xadgudubtid marna ma ogolaanayn cidii ku hamida ciday dooniba dhabarka ka joogto ciday dooniba ha soo taageerto waxaan hubnaa in aan ku dhiiranayna inaan isdifaaci karno on dadka xaq darrada soo wada ee al-qashaash ee al-shabaab in aan furinta u imanayno ciidanka liyu booliskana si wadaan leenahay intii dhimatana Allah u naxariistaan leenahay waana ni garab joogno assalaamu calaykum waraxmatullaahi gudoomiyaha gobolka mas'uuliyiinta heer gobola gudoomiyaha degmada mas'uuliyiinta heer degma dhalinyarada degmada Shiniile ee hoolka joogta saraakiisha liyu booliska ee jooga dhammaan waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت كبعدي قضب كهالكن ما انت اللي صور دقاي ايه القشاش كصابسن
annagu odhan mayno al-shabaab ma odhanayno al-shabaab dee dhallinyaradoo dhan baaba shabaab wadaa aan anigu u horreeyo oo maaragtay dhallinyaradaaban ka mid ahay marka al-shabaab odhan mayno magacay naga dilaysaa al-qushaash raalli kama nihin halkay joogtana waan ku weeraraynaa oday inan hooyo aabbo culimowdiin diyaar baanu nahay waxaanan garab joogsanaynaa ciidanka geesiyiinta ee liyu booliska waxa weeji waa wadnahayagii ciddii far saartana 5 farood baan saaraynaa intii dhimatayna ilaahay ha u naxariisto waxaan u fadhinaay ma jiree qurunkaasa kolka hore inaga maqnaaye al-qushaash kol haddii xaggan sare lagu sheegay dee maxaaban sugaynaa ina kiciya wixii caaray dilay caddayna wuu u joogaay waxa maanta gobolladeennii sare soo galay dee shiniil u joogaa bay ka dhigan tahay marka waxa weeji waa yeel dhalinyaro hooyooyin aabbayaal culimowdiin waa inaan diyaar galowno han eegno bal martiday nagu soo biiraysa xitaa waa inaan aad u dhuuxno oon iska eegno kolka meel qurun aw ka soo galo hadday lagu ku qurunto dee jidhkoo dhan baa wada xanuunsada markaa bal ha la eego martida maaragtay xitaa inoo soo hooyanaysa ha la eego waa ugac bay leeyihiin ugacdaasi way soo fidi waa inaan halkeeda ugu tagnaan annagu leenahay haddaan nahay aabbayaashii degmada Shiniile ama gobolka Cityba maanta halkan de intii matalaysa waa magaalo madaxdii haddaan nahay waxa weeji diyaar baan u nahay hiil hoo midig maal muruq intaba waan la garab joognaa geesiyiinta liyu booliska halkaa iyaguna ha ka sii wadaan annaguna waan garab taagannahay bismillaahi raxmaani raxiim gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada Shiniile shacab weynaha magaalada Shiniile dhalinyaro iyo odayaal dhammaantiinba waxaan nagu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxaan maanta halkan u fadhinaa inaan cambaarayno weerarka gaadmada ah ay kooxda al-qushaash ay ku soo qaaday ciidanka furiimaha xuduudka waddanka Soomaaliya walaalahan ee Soomaaliya aan la leenahay intii dhimatay halka ku shahiiday waa shahiid runtii oo dalkooga ay difaacayeen waxaan alla uga baryaynaa inuu jannadii firdawsa ka waraabiyo inta kadib anigoo ku hadlaya magacayga gaarka ah iyo magaca dhalinyarada gobolka City waxaan garab joognaa on hiil iyo hooba la garab joognaa ciidamada geesiyada ah ee liyu booliska deegaanka Soomaalida oon leenahay dhankiinaan nahay waad guulaysanaysiin weligiinba waad ka adkaydeen al-qushaash ajandahooga ugu weyn uu yahay inay qalalaasa ka abuuraan deegaankeena nabadda ah ee deegaanka ugu nabdoona Itoobiya iyagoo ay waliba ka dambeeyaan dawladda shisheeye waxaan leenahay waan garab joognaa meel baan saaraynaa waan iska dhabaynaa hiil iyo hoona waan ila garab joognaa hore u sii socda halkaad had guusha ka wadaan in ka sii dheer baad gaaraysaan insha Allah annakuna waxa leeyahay wixii taageerad nooga baahataan waan ila garab joognaa waad mahadsantihiin gudoomiyaha gobolka Shiniile iyo gudoomiyaha degmada waxa weeyaan degmada Shiniile dhammaan odayaasha waxa weeyaan gobolka Shiniile iyo dhalinyarta waxa weeyaan gobolka Shiniile waxa weeyaan salaamaya waxa weeyaan sargaal waxaan hay saraakiisha ciidanka booliska gaarka ka mid ah dhammaan waxaan diyaar u nahay oo ogsoontiin xadka waxa weeyaan ka xad bulshada deegaanka dhulka inaan diyaar u nahay marka tabayn difaacno marnana ma yeelayno waxa weeyaan dulmi ku socdo ama dhulka anaga ku socdo ama dadka anaga shacabka inay xasuuqaan u socdo marnaba kama yeelin intuu waxa weeyaan naga nool yahay marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi gudaan munaasabadaasi ayaa waxaa faataxada loogu maray xubnihii weerarka gobolka Afdheer ee ciidanka gaarka lagu soo qaaday ee halkaasi ku shahiiday isla markaasina halkaasi faataxada loogu maray waxayna shacabka gobolka City iyo degmada Shiniile ay ballan qaadeen in hiil iyo hoob ay la garab taageen ciidanka dawladda deegaanka Soomaalida oo isagu ka howlgala xuduudaha deegaanku la leeyahay wadamada jaarka sida Kenya, Soomaaliya
iyo sidoo kale Jabuuti.